bismillaahi raxmaani raxiim soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda show waa 12 bisha Juulaay sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah xalay waa la isu mirtay dagaal adag ayaa dhacay duqeymo culus ayaa la isweydaarsaday maxay Israa'iil diyaarinaysaa waana maxay bartilmaameedyada shanta ah ee Israa'iil hadda ay cilaamisay haddii dagaalka saddexaad dib loogu laabanayo ee u dhaxeeya Iiraan iyo dhinacyada kala duwanna yuu soo gaarayaa qasaaraha ugu badan Iiraan waxay ka jawaabtay dhammaan duqeymaha waxayna beegsatay dalal cusub iyo in ka badan 7 bartilmaameed ama 7 saldhig macluumaadkii ugu dambeeyay dhinacyada kala duwan qorshaha sirdoon ee Israa'iil suuragal ma tahay howlgal dhanka dhulka ah waa maxay macluumaadyada la hadalhayo sidoo kale maxaa ka jira in xubno ka tirsan Xuutiyiinta dalka Yemen lagu go'doomiyay gudaha dalka Iiraan oo halkaas ay ka soo bixi waayeen iyo qorshaha Mareykanka ee go'doomintii dawladda Iiraan oo dib loo bilaabayo dhaqdhaqaaqyada military ee socda iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagaya insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxa uu cumreynayaa Abu Abdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo markale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa waxa la xaqiijiyay geerida senator lagu magacaabo Lindsey Graham waxa Israa'iil ku tilmaamaan mid ka mid ah xulafadoodii ugu muhiimsanaa ee dalka Mareykanka waa ninka madaxweyne Trump ku cadaadinaya dagaal kasta oo Israa'iil la galayso dawladda Iiraan waa ninka ka dambeeyay in la bartilmaameedsado xarumo dhowr ah dawladda Mareykankana ku qalqaaliyay in dagaalka mar walba loogu heliyo Israa'iil wuxuu aaminsanaa in Iiraan ay caqabad ay ku tahay ama halis ay ku tahay Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe waxa kale oo aaminsanaa in xoogagga iska caabinta ee Xamaas aysan marnaba awood siyaasadeed iyo mid military aysan ku yeelan gudaha magaalada Gaza waxaana uu kamid ahaa dadkii meel mariyay sharciyo dhowr ah oo arrimahaasi ka dhan ah aad ayuu madaxweyne Trump uga cadaadin jiray arrimo dhowr ah warbaahinta ayuu soo fariisan jiray waxaana uu inta badan ku dhaliilay madaxweyne Trump qaadashada go'aanada da'da 17 sano jirka ayuu ku jiray waxa la sheegay xanuun degdeg ah inuu ku soo booday horena uu ka geeriyooday muddo 30 sano ayaa lagu waramayaa inuu Congress-ka Mareykanka uu ku jiray gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka ayuu matalayay inta ugu badan waxaana lagu tilmaamaa saaxiibkii Israa'iil ay ku lahayd golaha sanadka ee dalka Mareykanka waan arki doonaa qodobkaas iyo waxyaabaha ka soo kordha markaan aan eegno xalay iyo sida la isu mirtay waxaan ku hormarayaa macluumaadkii ugu dambeeyay muuqaalkani waxa baahiyay warbaahinta dawladda Iiraan waxa uu ahaa mid ka mid ah gantaalada Iiraan ay u adeegsatay waa barigii maanta saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe Iiraan waxay duqeysay dalal cusub waxayna ka dhabaysay ballanqaadkii ahaa in Kuwait iyo Bahrain oo kaliya aysan bartilmaameysan doonin haddii Mareykanka duqeynta iyo dagaalka dib ugu soo laabto muuqaalkanina waa diyaarado drones ah iyo gantaalo isku dhafan oo ay dawladda Iiraan ay duubtay xalay xilligii la bartilmaameysanayay dhowr goobood oo ku yaala dalalka Khaliijka Mareykankana war cusub ayuu soo saaray maxaa xalay dhacay Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyo wareegii saddexaad ee howlgal ay sheegeen inay ka fuliyeen gudaha dalka Iiraan barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan idin kula wadaagay inuu socdo qorshaha howlgalka loogu magac daray dharbaaxada oo Iiraan la doonayo si tartiib tartiib ah in looga kalluumaysto lana baabi'iyo awoodeeda iyada oo la beegsanayo xarumo dhowr ah taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaano waxay sheegeen ilaa in ka badan 6 magaalo inay xalay ay duqeeyeen oo magaalada Bushahri ay kamid tahay magaalada Bandar Deir lagu magacaabo magaalada Jabahar lagu magacaabo Sirig iyo jasiiradda kale ee Qishim dhamaan waxa lagu bartilmaameysaday noocyada kala duwan ee gantaalada waxa hawada soo galay diyaaradaha dagaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale maraakiibtii Mareykankana waxaad moodaa dhaqdhaqaaq inay sameynayaan gobolka bariga dhexena mar kale ma waxa uu foolanayaa dib inuu ugu laabto dagaal saddexaad oo Iiraan lagu qaado wax walba waxay isbedeleen warbixintii sirdoon ee Israa'iil ay soo saartay maalmo ka hor oo lagu sheegay madaxweyne Trump in la doonayo in la qaarijiyo sirdoonka Iiraan ay ka shaqeeyaan arrimahaas inkastoo madaxweyne Trump uu yiri mar walba Iiraan bartilmaameed ayaan u ahay militariga Mareykanka waxay sheegeen wajiga saddexaad ee howlgalka ama saddexdii weerar ay ugu dambeysay in Iiraan ay ka burburiyeen ilaa in ka badan 300 oo goobood weeraradan Mareykanka waxa uu sheegay inay u adeegsadeen diyaarado dagaal oo ka soo duulay saldhigyada dhanka dhulka ah iyo sidoo kale maraakiibtiisa ee gobolka yaala sidoo kale diyaarada aan duuliye lahayn iyo gantaalo maraakiibtaba ay rideen ayaa lagu waramayaa inay ahaayeen duqeynta Iiraan loo adeegsaday
bartilmaameedyadan waxay sheegeen dhowr goobood inay bartilmaameysadeen sida xarumaha kaydka ciidamada badda ee dowladda Iran, xarumo ciidamada badda ay lahaayeen, xarumo lagu kaydinayay noocyada kala duwan ee hubka sida diyaaradaha droniska, kaydadka militariga, shabakadihii isgaarsiinta iyo goobaha kormeerka xeebaha ee dowladda Iran. Xarumahaas oo idil ayay Washington sheegtay inay beegsatay saacadihii ugu dambeeyay. Mareykanka inuu yiraahdo marka 80 goobood ayaan beegsaday 140 ayaan bartilmaameysada waxay qayb ka tahay qorshaha howlgalka loogu magac daray howlgalka dharbaaxada oo aan xalay idin la wadaaga macluumaadkiisa iyo sida loo qorsheeyay. Iran gacmaha iskuma aysan laaban waxaan afayeenka baarlamaanka ee dowladda Iran uu yiri hadii aad moodaan jibinta xabad joojinta inaan ka aamusi doono waxaan filayaa jawaabteeda hadda inaad hesheen. Iran waxay sheegtay inay bartilmaameysatay ilaa 7 goobood waxay si gaar ahaaneed u weerareen wadamada qaliijka gaar ahaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay waana halkaas halka gacantooda Iiraaniyiinta ay gaari karto maadaama gudaha dalka Mareykanka gacantooda aysan gaari karin waxa u dhow waa saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe oo ay aaminsan yihiin in xitaa weerarada iyo qorshaha dagaalka Iran ka dhana laga abaabulayo. Waxay bartilmaameysadeen Jordan oo 3 goobood ay ka sii weerareen sida xarunta taliska hagida diyaaradaha hangarada lagu kaydiyo diyaaradaha MQ-9 Reaper-ka loo yaqaano iyo kaabayaal military. waxay duqeynta Iran ay ku soo kordhiyeen oo xalay ay beegsadeen gudaha dalka Qatar saldhigga Mareykanka ugu weyn halkaas uu ku leeyahay waxay beegsadeen Cumaan iyadoo Cumaan saacado ka hor duqeyntan uu tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran arrin la xiriirta marinka Hormuz oo Iran aad moodo in halkaasi laga dacwareemayo. sidoo kale waxay beegsadeen Kuwait waxay beegsadeen Bahrain waxay weerar ku qaadeen maraakiib Mareykanka kaga sugan agagaarka marinka Hormuz waxay weerar ku qaadeen dalka Sultanka Imaaraadka Carabta iyadoo dowladaha qaliijka maanta war ay soo saareen dhamaantood oo wasaaradahooda gaashaandhigga ay yiraahdeen diyaaradihii iyo wixina lagu soo weeraray oo idil waan ka hortagnay laakiin dhawaaqa qaraxyo culus ayaa meelo kamid ah dowladaha qaliijka laga maqlayay. Iran waxay sheegtay marka inay xarumo muhiim ah oo military u badan ay beegsatay si gaar ahaaneed xarumaha nidaamka isgaarsiinta Mareykanka xarumaha raadarada maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kaga sugan gobolka Bariga Dhexe xarun lagu kaydiyo rasaasta nidaamka difaaca cirka ee dalka Kuwait ee THAAD iyo Patriot nidaamka Patriot xarunta dayactirka adeega diyaaradaha dagaalka xarumo badan ayay sheegeen oo xitaa Qatar ku yaala Imaaraadka ku yaala in Iiraaniyiintu ay beegsadeen. intaas oo idil marka in Iran ay wax tuurto Mareykanka sidaas oo kala duqeymo uu fuliyo waxa daawanaya oo ku faraxsan sheekadana aad ula dhacsan waa dhanka iyo Israel iyadana qorshe ayay wadaa oo ay diyaarinaysaa qorshahaasi muxuu yahay warbaahinta Al-Arabiya oo laga leeyahay dalka Sacuudiga waxay baahisay in Israel 5 bartilmaameed hadda ay diyaarsatay maalin ka hor wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa si cad u sheegay in la soo gabagabeeyay qiimeen iyo sahan ay ciidamadooda iyo sirdoonkoodaba ay sameeyeen si Iran duqeymo looga fuliyo hadda 5 goob ayaa lagu waramaya Israel inay bartilmaameedyo ay ka dhigatay laakiin ay sugayso ogolaanshaha kama dambaysta ee dhanka Mareykanka waa xarumaha shidaalka iyo gaaska xarumaha tamarta ee dowladda Iran saldhigyada korontada warshadaha muhiimka ah iyo shabakadaha gaadiidka xarumahaas ayaa lagu waramayaa in Israel ay doonayso inay beegsato waxa intaas si dheer in saacadii ugu dambeeyay wasiirka gaashaandhigga mar kale uu baahiyay in ciidankooda heegan ay ku jiraan sidoo kalena qorshayaashaasi la dejiyay amarka kama dambaysta ay ka heleen ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wasiirka gaashaandhigga isagana amar uu bixiyay sidaas oo kale taliyaha ciidamada Israel ayaa sheegay in ay ururiyeen macluumaad aad u dhameystiran welina uusan idlaanin dagaalka iyo ololaha ka dhanka ah dowladda Iran ciidamada Israel xoga badan ayaa lagu waramaya hadda inay diyaariyeen maalin ka hor waxa la sheegay inay heegan ay galeen sida mas'uuliyiinta Israel ay sheegeen marka iyaguna waxay doonayaan inay fursadahan ka faa'iideystaan waxaana ay diyaarinayaan dagaal kale oo dheeraada iyada oo howlgalka duqeynta ay doonayaan dhinacooda inay uga soo biiraan inkastoo Mareykanka qorshahaasi uu aad u diidan yahay maxaa yeelay Israa'iiliinta hadii dagaalka ay ku soo biirayaan wuxuu aaminsan yahay inay doonayaan si toos ah inay u beegsadaan hoggaanka ugu sarreeya dowladda Iran waxa barbar soconaya qorshe kale oo weerar dhanka dhulka ah oo warbaahinta qaar ay falanqeynayso iyadoo marka hore la doonayo in la daciifiyo awoodda dowladda Iran ee nidaamyada isgaarsiinta iyo raadarada ay dhaqdhaqaaqyada ay kala socon karayaan kadibna la doonayo jasiiradaha Iran ee marinka Hormuz ku yaala in weerar lagu qaado
sheeko kale oo cajiib ayaa iyadana soo baxday baaritaano ayaan ku sameynayna macluumaad kasta oo kasoo kordhana waan kula wadaagaya oo dhanka Cumaan ku saabsan iyada oo Cumaan ay doonayso in qayb ka mid ah biyaha marinka Hormuz iyaga ay maamulaan inay maraakiibta ay ka gudbaan oo iyaga ay u madax banaanaadaan Iiraaniyiintana qaybtooda ay maamulaan waana sababta keentay in wafuud ka socota dowladda Iiraan si degdeg ah u tagaan gudaha dalkaasi Cumaan waana ogaan doonaa insha Allah taala inkastoo 24 saac ugu dambeeyay aad loo falanqeynayo suuragalnimada duulaan dhanka dhulka ah oo Mareykanka iyo Israa'iil ay diyaarinayaan macluumaadkan oo idil iyo wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagaya insha Allah like-san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay warbaahinta qaar waxay baahinaysaa macluumaadka ku saabsan in wafdigii ka socday Xuutiyiinta dalka Yemen ee ka qayb galay munaasabadii aaska ee gudaha dalka Iiraan inay ku yara adkaatay inay ka soo baxaan gudaha dalkaasi Iiraan xogaa go'doomin ahna ay dareemeen sabab la xiriirta duqeymihii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada military ee soconaya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Iiraan ayaa warbaahintu ay ka soo xiganaysaa in la hakiye ama la xayiray wafdiga Xuutiyiinta ka socdo ilaa 200 ku dhow kuwaas oo dhawaan ka dhaqaaqay gudaha dalka Yemen si ay Yemen ugu laabtaan waxa lagu warramaya caqabad inay la kulmayaan sababaha rasmiga lama sheegin in xaaladahan soo kordhay ay u badan tahay sababta baaqashadoodana waa lagu badinaya sidoo kale waxa jira khilaaf Sacuudiga iyo Xuutiyiinta u dhaxeeyo arinta hawada iyo maamulka iyo arrimahaasi ku saabsan iyagoo dhinaca kale laga baqay wafdiga marka ay ka soo laabanayaan gudaha dalka Iiraan in uu yaraan hub iyo qalab iyo tiknoolajiyad fiican inay dib ula soo laabtaan iyadoo kormeer la doonayo in lagu sameeyo wafdigan cidda xayirta si toos ah looma sheegin laakiin macluumaadkan hadii uu soo kordho waan kula wadaagayaa Xuutiyiinta dalka Yemen waxay dhawaan isaayeen Sacuudiga waatii aan idin la wadaagay dhinaca kalena waxa soconaya qorshe madaxweyne Trump uu doonayo inuu dib ugu soo celiyo go'doomintii Iiraan lagu hayay wargeyska Middle East Observer lagu magacaabo ayaa daabacay qorshahan hadda in miiska la soo saaray si dib loogu laabto go'doomintii dhanka badda ee dowladda Iiraan hadii go'doomintaasi dib loogu laabtana xaaladdu way adkaan doontaa Iiraan saacado goor waxay ku dhawaaqday marinka Hormuz gabi ahaanba in la xiray markabka soo gudbi karayana uusan jirin markabkii soo dhawaadana in la beegsan doono oo duqeymihii ugu dambeeyay xalay la iswadaarsaday waxay ka dambeysay markii dowladda Iiraan markab ay digniin ay u dirtay kaasoo calanka Greek uu ka dalbabanayay markabkaasna uu diiday digniinta dowladda Iiraan kadibna sidaas lagu beegsaday Mareykankan wuxuu yiri waan ka jawaabaynaa qorshaha la doonaya marka in diiradda lagu saaro ee go'doominta dekadaha dowladda Iiraan waxa ka horeeyay saacado ka hor markii dowladda Mareykanka cunaqabateyn ay ku soo rogtay shakhsiyaad la sheegay in maamulka dowladda Iiraan ay aad ugu dhow yihiin dhaqaale badan ay ku taageereen taas oo ah qorshe marka la jibinaya heshiiskii hore u gaareen Mareykanka iyo dowladda Iiraan arinta go'doominta marka waxa la doonayaa si gaar ah diiradda in loo saaro shidaalka iyo maraakiibta dowladda Iiraan ee laga shakisan yahay in qalab military iyo agab kalaba ah ay kala imaanayaan wadamada kale marka ay shidaal u iibgeeyaan ujeedada ayaa waxa Mareykanka uu ku sheegay in tahay in Iiraan lagu cadaadiyo joojinta weerarada maraakiibta iyo sidoo kale in la xaqiijiyo furnaanshaha marinka Hormuz iyada oo Donald Trump muddo 24 saac Iiraan uu qabtay laakiin Iiraaniyiintu taasi kama aysan jawaabin sidoo kalena wararka soo baxay waxay sheegayaan in Mareykanka gobolka uu u soo diray 2 markab kuwaas oo diyaaradaha dagaalka ay ka duulaan iyo maraakiib kale oo aad u tiro badan kuwaas oo caawinaya labada markab ee USS Abraham Lincoln iyo George Walker Bush iyadoo sidoo kale ay la socdaan maraakiib burburiyaal ah maraakiibta difaaca gantaalada iyo kuwa sahayda tiradan oo 20 gaaraysa marka noocyada kala duwan ee maraakiibta marka la eego micnuhu ma ahan in dhammaan ay saf ay u gali doonaan marinka Hormuz iyo sidii maraakiibta loo galbin lahaa balse ujeedadu waxay tahay awoodii go'doominta dowladda Mareykanka ee marinka Hormuz dib in loo soo celiyo hadii qorshaha la fuliyo maraakiibta looga shakiyo inay Iiraan ay leedahay suuragal waxa ah in la hor istaago dibna ay u laabtaan haddii markabka uu diido marka Mareykanku wuxuu adeegsan karayaa diyaarado kormeer helikobtaro iyada oo Iiraaniyiintuna ay ka soo horjeedaan in go'doomintaasi mar kale dib loogu celiyo labadan arrin ee ku saabsan ma labada dhacday ku saabsan in Xuutiyiinta la go'doomiyay oo xulafadooda ama saaxiibadooda aysan ka soo laaban gudaha dalka Iiraan iyo arrintani cusub ee go'doominta waxa ay ku tusinaysaa xiisadda gobolka iyo suuragalnimada dagaal kale oo ka adag midkii hore inuu ka dhici karayo gobolka Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa waxay awood ku leeyihiin gudaha dalkaasi Iiraanna dhankeeda waxay sii wadaa dadaalada iyo dhaqdhaqaaq kasta ay doonayso inay kaga hortagto qorshaha la doonayo marinka Hormuz gacantooda in laga bixiyo sidoo kalena go'doomintii dhanka badda dib loogu soo celiyo wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah sida warbaahinta Al Jazeera ay baahisay warbixin ay diyaarisay hay'adda xabsiyada Israel ayaa sheegtay in maxbuuska Falastiiniga ee Marwan Barghouti weli inuu leeyahay saameyn siyaasadeed iyo mid shacab oo aad u ballaaran
warbixintu waxaa lagu sheegay in xabsiyada dhexdiisa uu kasoo gudbinaya ninkan fariin siyaasadeed iyo kuwa Israa'iil ay ku tilmaamtay kicin islamarkaana lagu sii xoojinayo maqaamkiisa hogaamiye awoodda u leh inuu mideeyo ururada Falastiiniyiinta saameynna uu ku yeesho mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin. warbixintani maxay Israa'iiliyiinta kala jeedaan? ma waxay doonayaan ninkan in xabsiga lagu sii hayo tanina ay noqoto mid ka mid ah marmarsiyada la doonayo in Marwan Barghouti aanan laga sii daanin xabsiga maadaama dad badan ay doonayeen oo xitaa siyaasiyiin Amerikaan ay ku jiraan ninkan in la sii daayo intii wada hadaladii xoogagiiska cabinta lagula jiray. sidoo kale xoogagu aad ay u doonayeen in la sii daayo Marwan Barghouti. sida warbixintan oo lagu daabacay wargeyska Idaacood Ahmad lagu sheegay Barghouti tan iyo sanadkii 2002 waxa lagu xukumay 5 xabsi daa'in wuxuuna uu ka gudbay marxaladihii caadiga ah isagoo u wareega waxa hay'adda xabsiyada Israa'iil ay ku tilmaamtay saameyn maskaxeed iyo mid istiraatiiji. wixii ka dambeeyay hogaamiyihii xoogagiiska cabinta Yaxya Sinwar markii Israa'iil ay sii daysay awoodiisana la arkay waxay aad uga shalaayeen sii deyntiisa iyagoo sidoo kalena gacanta ku haya xubno kale oo la tuhunsan yahay in doorkaas oo kale ay ciyaari karayaan. warbixintu waxay sheegtay in hadda uu adeegsanayo khudbado siyaasadeed iyo qaabeen aragtiyo iyo sheekooyin siyaasadeed halkii si toos ah uga qayb qaadan lahaa howlaha dhulka ka socda iyada oo aan la sheegin halka uu warbixintan ama fariimaan ugu gudbinayo xoogaga ku sugan gudaha dhulka Falastiiniyiinta. sidoo kale waxay ku andacoonayaan Barghouti weli inuu ku dhagan yahay wadada iska caabinta islamarkaana uusan tanaasulin isagoo adeegsanaya shabakada ay ku jiraan dad isaga ku dhow iyo qareeno si fariimihiisa loogu gudbiyo dibadda isagoo ka taxadaraya in doorkiisa si toos ah ana loo soo bandhigin. waa qaabka kaliya ee fariintiisa bannaanka ay ku imaan karto inkastoo eheladiisa dhowr jeer ay sheegeen in loo diiday xitaa inuu la kulmo. warbixintu waxay tilmaamaysaa in Barghouti uu helayo olole taageero oo caalami ah oo aad u sii xoogaysanaya. deegaano badan oo reer galbeed ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa astaanta u taagan halganka Falastiin halka ololayaasha qaar ay barbardhigayaan ninkan hogaamiyihii Koonfur Afrika Nelson Mandela. Israa'iil si adag ayay u diiday isbarbardhigaasi iyaga oo sheegaya Barghouti in lagu helay kulug lahaanshiyaha weerar dhacay intii lagu guda jiray kacdoonkii labaad ee Falastiiniyiinta kaas oo 5 Israa'iiliyiin lagu dilay. sidoo kale waxay sheegeen in lagu helay dambiyo kale oo lala xiriirinayo isku daydil iyo kamid ahaanshiyo ururo hubaysan. sida warbixintu ay sheegtay Barghouti wuxuu ku guuleystay inkastoo xabsiga uu ku jiro inuu ilaashado maqaamkiisii gudaha dhaqdhaqaaqa Fatah waxaana mar kale loo doortay xubin ka tirsan golaha dhexe ee Fatah dhawaan doorashadii dhacday. wuxuu sidoo kale u leeyahay taageero siyaasadeed iyo mid shacab. sidoo kale waxa uu qabaa qoraaga warbixintu intani ay ka dhigayso mid ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee mustaqbalka hogaamin karaya maamulka Falastiin haddii fursadaasi loo ogolaado. warbixintu waxa kale oo ay leedahay Barghouti waxa uu doonayaa inuu dhiso hoggaan Falastiiniyiinta ay leeyihiin oo midaysan kaas oo ay ka wada qaybgalayaan dhammaan ururada kala duwan oo xitaa Xamaas ay ku jirto. arrintaasina waxay ka dhalanaysaa rumaysnaantiisa in mashruucii qaran ee Falastiin in weli aanu guulaysan karin haddii aysan ka qayb qaadan dhammaan awoodaha siyaasadeed. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in aragtidan ay marka laga eego dhinaca Israa'iil ay sharxayso sababta xoogagiiska cabinta ay ugu dadaaleen in magaca Barghouti lagu soo daro heshiisyadii maxaabiista la isku weydaarsanayay iyo sababta loogu arko shakhsi awood u leh inuu hogaamiyo marxaladda siyaasadeed ee cusub ee dhulka Falastiiniyiinta. sidoo kale warbixinta waxaa looga hadlay howlaha Barghouti uu sanadihii ugu dambeeyay uu ka waday gudaha xabsiga uu ku jiro. waxaa la sheegay inuu kormeeray barnaamijyo waxbarasho oo loogu talagalay maxaabiista ka hor inta aanan la joojin. sida ay sheeganayso sheekada Israa'iil wuxuu barnaamijkaasi u adeegsanayay inuu ku xoojiyo saameyntiisa gudaha maxaabiista inkastoo mararka qaar la sheegay ninkan meel gooni ah inuu ku xiran yahay oo aanan xitaa dadka loo ogolaan. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay Barghouti inuu aqoonta u arko qalab lagu xoojin karayo awoodda siyaasadda. wuxuu muhiimad siinayay in maxaabiista la baro mawaadiicda la xiriira taariikhda Israa'iil, hay'adaha amniga iyo hababka baaritaanka si loo diyaariyo xubno Falastiiniyiin ah oo aqoon ballaaran u leh xaqiiqda iyo nidaamka Israa'iil si la mid ah sidii uu sameeyay Yaxya Sinwar. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in saameynta Barghouti aysan ku koobnayn fagaaraha Falastiin balse sidoo kale ay gaarayso xitaa gudaha Israa'iil. Barghouti wuxuu isku dayaa inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Israa'iil isagoo xiriir la sameynaya shakhsiyaad caan ah iyo xubno carbeed oo ka tirsan baarlamaanka Israa'iil. qaar ka mid ah xubnaha carabta ee baarlamaanka Israa'iil ku jira ayaa la sheegay inay Barghouti la xiriireen si ay taageero uga helaan hindise lagu dhisayo xisbi carbeed oo midaysan kaas oo yeelan karaya miisaan siyaasadeed oo weyn. xisbi noocaasi ayaa sare u sii qaadi karaya awoodda muwaadiniinta carabta oo ay ugu yeelanayaan saameynta dhismaha dowladnimo ee maamulka Israa'iil.
xiriiradaasi marka warbixintu waxa ay u aragtaa inay muujinayso dadaalka barquuti ugu jiro inuu saameyn uu ku yeesho habka ay bulshada carabta ee Israa'iil ay u codayso iyo isku dheelitirka awoodda siyaasadeed ee Israa'iil. waxaa laga yaabaa inay arrimahan oo idin la yaab ay kula noqdaan, laakiin waa macluumaadyo bannaanka soo baxay maanta. wuxuu taas uga faa'iidaysanayaa maqaamkiisa astaan qaran iyo taageerada uu ku dhex leeyahay qaybo badan oo Falastiiniyiinta ku nool gudaha xabsiyada Israa'iil iyo deegaano kale ama dibaddaba. waxaa sidoo kale la sheegay barquuti inuu si taxadar leh u maamulo muuqaalkiisa siyaasadeed isaga oo door bidaya in dad kale ay gudbiyaan fariimihiisa halka isagu uu si toos uga soo muuqan lahaa. arrintaana waxay gacan ka geysanaysaa in loo arko astaan qaran halkii ugu yaraan loo arki lahaa siyaasad dhaqameed si maalinle ugu lug leh loolanka siyaasadeed. ugu dambeyntii warbixinta waxay xaqiijinaysaa in ololaha caalamiga lagu dalbanayo sii deynta barquuti ay ku jiraan siyaasiyiin, aqoon-yahano, fanaaniin iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ka socda dalal kala duwan, kuwaas oo muuqaalkiisa sii xoojinaya. taageerayaashiisa waxay arkaan maxbuus siyaasadeed inuu yahay iyo astaan u taagan Falastiiniyiinta. waxaa kaloo ay ku doodaan in muuqaalka caalamiga ah uu iska indhatirayo xukunada maxkamadaha lagu riday iyo nooca eedeynta ee ninkan lagu haysto. gabagabadii warbixintu waxay sheegtay Marwan Barquuti weli inuu yahay marka laga eego aragtida hay-adaha xabsiyada Israa'iil shakhsi udub dhaxaad u ah fagaaraha siyaasadda ee Falastiin inkastoo xabsi uu ku jiro. adigu maxay kula tahay qaybta hoos aragtidaada ku reeb like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay.